الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما بعد، ilaahay subxaana wa tacaala bay mahadideelkeeda u sugnaatay. allihii jalla wacalaa inaga dhiga islaam, inoona doora inaanu ka mid noqono ummadii nabi maxamed calayhi asalaatu wassalaam. wabacda salaam biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. caawa sida mowduuca idinkaga muuqata, waxaan wax ka tilmaami doonaa biidni illaahi albaari calaamadaha lagu garto ubadka inay ku dhacday il ama ishu ay haleeshay oo ay la bukaan. siduuse qofka uga daweyn karayaa ubadka? biidni illaahi tabaaraka wa tacaala, xanuunadan in la ogaado, qofka uu ogaado waa muhiim, waalid hadduu yahay hadduusan ahaynba. wa thaaniyan, qofka isaga keligiibaa awoodi karaya hadduu ku dadaalo tilmaamahan siinayo inuu ubadkiisa ku daweeyo, isagoo aanan qof mucaalij u tegin, meel cilaajna aanan geynin. biidni illaahi tabaaraka wa tacaala, ishu ama xasadku ama cawridu, qof walba siduu u garanayo, waa wax haabida oo sugan cinda kitaab illahi tabaaraka wa tacaala wa sunnati annabiyi calayhi asalaatu wassalaam. waxayna ka mid ahayd waxyaabihii ilaahi subxaanahu wa tacaala nabi maxamed calayhi asalaatu wassalaam markii qoladii yahuudda ay sixirtay lagu soo dejiyey inuu ilaahay ka magan galo. waxaa ka mid ahaa fi suurati alfalaq, wa min shari xaasidin idaa xasad. waxaa tirahdaa baa layidhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam, waxaan ilaahay ka magangelayaa mid xaasida sharkii oo idil markuu waxasdayo ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala ka magangelayaa dheh baa lagu yidhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam. ishu ama xasadku waana macluum thaabit min alqur'aani wasunna. waxaana inooga filan daliilkeedu inuu nebi maxamed calayhi asalaatu wassalaam min xadiid cabdillahi bni cabaas oo warinayo inuu nebigu yihi calayhi asalaatu wassalaam, alcaynu xaq walow kaana shayun saabiqu lqadari sabaqathu lcayn. ishu waa xaq, waana shay sugan. haddii shay ilaahay qadarkiisa maanta kasoo hormari lahaa uu jiri lahaa bacda qadaa'i illaahi wa qadarih, isha bini aadamka ayaa kasoo hormari lahay sidii u degdeg badan tahay oo ayna qofka u haleelid og tahay. waxa uu leeyahay culimmadu, fa kullu caa'inin xaasid walaysa kullu xaasidin caa'ina. mid kastoo caa-in ah oo dadka ilaysta xaasid ma aha, laakiin mid kasta oo xaasida ummadda makriya oo xasda waxay haystaan ku qoonsadayo ayaa caa-ina. ishiisi kaasibaa darnaansho badan. ishuna waa sihaamun takhruju min nafsi alxaasid waalcaa-in. ishuna waa leeb ka soo baxaysa oo kasoo go-aysa qofka xasadka ah qalbigiisa iyo qofka caa-inka ah. waxa uu leeyahay alimaam abi cabdillaahi almaaziri, wuxuu leeyahay akhada jamaahiir alculamaa bidaahiri alxadiid. waxay qaateen oo ay ku tageen culimada daahirka xadiiska ayay qaateen oo ku tageen iyagoo odhanaya alcaynu xaq wa madhabu ahli sunna
ana alcayna inamaa tufsidu wa tuhliku cinda nadari alcaa'in bificli illahi tabaaraka wa tacaala. ishu waa xaq way sugantahay wuu yidhahdo, waana madhabka ahlusunna inay wax sugan ku tahay kitaabka ilahi sunnada nabigu calayhi asalaatu wasalaam. ishu wuxuu leeyahay waxbay fasahaadinaysaa haddii qofka ay ku dhacdo, wayna halaagtaayo waxnaba way baabi'isaa hadday qofka haleysho oo ay ku dhacdo. waana aragtida ugu horeyso qofka caa-inka qofka ishiisa ku halayso. xasadku ama ishu waxay ka dhacdaa insiga kale ayay ku dhacdaa. waxay kale ka dhacdaa jinku, wuxuu ku haleelaa insigu. wuxuu ka dhacaa ishu qof kastoo wax arka iyo qof kastoo aan waxba arkinba. xitaa qofku wuxuu isha ku asiibin karayaa, uu isha ku ridi karayaa yacni naftiisa, xataa adoona meel kalean aadin, adigu naftaada sabab waa isugu noqon kartaa inaad is ilaysato. waxay ishaada sabab u noqon karaysaa owlaadda aad dhashay inaad ilaysato. ishu waxay sabab u noqon karaysaa maalka aad leedahay inay kaa burburiso, kaa baabi'iso, haddaadan dhihin maa shaa allahu laa quwata ila billah. maa shaa allahu laa quwata ila billah haddaadan dhihin. aan usoo dhaadhacna mawduuca guntiisii. calaamadahii lagu garan karayaa ama lagu ogaan karayaa ubadku in ay haleeshay ama ay ku dhacdo ishu. xanuuno badan bay ubadka la taalaa dhacayaan. xanuuno badan bay ubadku haya ama ay la bukaan oo la jiifaan, laakiin aktharku dadku ay moodayaan xanuunadaasi inuu yahay xanuuno caadiya ee dabiiciga bini aadamka ku dhacay, laakiin aktharkii inta ugu badan uu yahay xanuun ubadka u sababay isha iyo ma cawrida bini aadamku. waxaan tilmaamayaa 15 qodob oo ubadka hadday ku sugan yihiin, kuwa waalida u tahay, kuwa aad garanaysa, kuwa aadan garanayninba, idlaaqan ubadkaasi uu yahay kuwa ay haleeshay ishu bini aadamkayna la bukaan. awalan, ubadka haddii lagu arkayo habeenkii inuu yahay mid soo naxnaxaya, mid nixitaankiisu uu badan yahay, haddii uu jiifo iyo hadduuba soo jeedaayoba mar walbuu goconayo, uu naxayo, oo qof markaa naxayo oo boodayo oo kale uu noqonayo, ubadka waxaa haleelay ishu bini aadamku. sida iqaabka looga daweynayana waan tilmaami doonaa, si qof walba nafsadiisi ehelkiisu ugu dadaaliyo ubadkiisu inay ka dawoowaan awgeedii. marka haddii ubadka naxdin fara badan lagu arko ku sugan yahay had iyo goor, waa min calaamaati alcayn oo ubadkaasi haleyshay ama ku dhacay. waxaa kaloo ka mid ah ubadka oo fahmadu ku yaraata, isagoo asalkiisa ahaa qof fahmad badan xagga madarasadii xagga iskuulkuba, oo meelo heer sare uu keeni jiray fahmadiisu ay wanaagsaneed, oo fahmadiisa dib u dhacay culays ku yimaaday oo maskaxdiisu dhan jaamgarowday, khaasatan xagga fahamka. oo iskuulka iyo dugsigu ay mar walba macalimiinta soo cabanayaan oo leeyihiin wiilka maxaa guriga ka haystaa ama inantu maxaa guriga ka haystaa, waxba fahmi maysa marka uu macnaa madarasada ama iskuulka ay joogto. marka ubadkaaga adigood ka ogaa firfircooni iyo aad ku ogeed inuu markaa yahay fariid, haddana dib u gurasho uu keeno oona uu yahay mid mar walba fahamkiisa dib u dhacayo, iyaduna waa calaamaad in ubadkaasi ay haleeshay ishu bini aadamku. calaamad saddexaad waxaa weeyaan ubadka oo jeclaysta jiifidda badan, isagoo dugsi leh, isagoo iskuul leh, isagoo dana kale leh, ubadkiio haddii goor caajis jiifa lagu ibtileeyey. ubadka oo jiifkoodii bata, oo sariir ku dhagoodii bata, oo ziyaado ah, oo maanta qof weyn oo kale shaqadu qabto uu sababsaday uu la caajisan yahay ama uu la jiifaa la odhan karaynin. inta badan ubadka jiifka badan lagu arkaayo hurdada ziyaadada ah waa min calaamaati alcayn aladii asaabat ay ku dhacday ubadkaasi.
qodobka afraad waxaa weeyaan oo calaamadaha haleelaya ubadku ubadka ama caruurta in badan oo ka mida markii iskuulka la geeyey aadaan oy tagaan ama madarasadu ay aadaan ay tagaan gam'id badan, hurdo badan, lulmo badan. markuu guriga joogo, meheradaha kale jooga, meelaha lagu ciyaaraya jooga, wuu wacan yahay. se markii iskuulka la tagay buuggii qalinka la isdul saaraya ama madarasada la tagaayo kitaabka uu qaatayo hurdo culeeb baa lagu soo tuuraya, waaba gam ayaa indhihiibu isku qabsanaya. ubadka caynkaas oo kale ee hurdada badan waa min calaamaati alcayn aladii asaabat, waa isha haleeshe ama ku dhacday. oo sii sheergareeya walaalihiina baaraka allahu fiikum, ummadda si ay uga faa'iidaysato calaamaadkan ay u ogaato inay tahay isha bini aadamkee ubadka haleeshay. qodobka shanaad waxaa weeyaan ee ubadka lagu garanaya inay ishu bini aadamka haleeshay amay ku dhacday, ubadku had iyo goor ka cabanaya ama tabanaya ka qabasho xubin daa'ima laga qabto. xubin baa xanuunaysa ubadka, xubintaasina maanto idil wuxuu ku odhanayaa hooyoy ama aabbo xubintan ha la ii riixo. aada moodaysid inuu macaansanayo maantao dhan in loo gujiyo ama loo riixayo ama loo duugaayo uu doonayo. ubadka isagoo yar dalbanaya in loo riixo xubnaha jirka xubno ka mid oo aada u jeclaysanaya lugaha ama dhabarka ama gacmaha, oo jeclaysanaya riixitaankaasi oo aada ugu raaxaysanayo, iyadana waa min calaamaati alcayn aladii asaabat yacni hada tifl, cunigaasi ama ubadkaasi haleeshay. qodobka lixaad waxaa weeyaan ee qofka uu ku garan karayo ubadka inay il ku dhacday, ubadka mar walba lagu arkaa jirkiisu inay kasoo yaacayaan ama ay kasoo baxayaan nabro yar yar, ay kasoo baxayaan haddana cuncun ziyaado ku haya. jirkiisa mar walba waxaa laga arkayaa yacni nabro yar yar oo kasoo daadanaya, laga yaabaa inuu yara xoqayo laakiin cuncun ziyaado ku haya. hadda inta badan ubadka noocaas oo kale lagu arkayo calaamadaha noocaasi, iyaduna waa min calaamaati alcayn. qodobka toddobaad waxaa weeyaan ubadka lagu garanaya inay il bini aadam ay ku dhacday, ubadka mar walba caadhoonaya, ubadka caadhoonaya oo haddii goor jirka ka caadhoonaya, ama waxaa lagu magacaaba dheerdheerada ay kasoo baxayso jirkiisa. markii la arko ubadku xatiimo dhaadheer in lagu dhigay baad moodaayo, yacni dheerdheero soomaalidu way taqaanaa, dheerdheero oo kale ay kasoo baxdo, ayna mar walba jirkiisu yani caadho badan yahay oo mar walba caaradu ay ku badan tahay iyo cananiyadu, iyaduna waa min calaamaati alcayn oo ubadkaasi haleeshay jirkiisa. waxaana la macnaa taa oo iyaduna ay wehlisaayo ubadka oo mar walba iyagona jirkooda lagu arkayo xatiimaha. subaxii oo habeenkii buu jiifanayaa, subaxii markuu soo tooso waxaa la arkayaa ubadkii oo jirkiisa xagtiime ay ku yaalaan, xagtiime sidii qof yara xagtay oo kale oo gacantiisa cidiya ama faraha ku jiiday oo kale baa lagu arkayaa. arrimahaasi ubadka lagu arkaa xagtiimaha subaxii markuu soo kaco oo kale oo cidiye ku yaallo oo kale, iyaduna waa min calaamaati alcayn. waxaa laga yaabaa cidiyaha ku yaalla xanuun inaysan ku hayin, dheerdheeradaasi inaysan xanuun ku hayin, in badan oo ka mid a yani jirka uu ka caaroonaya xanuun aysan ku haynin, laakiin waa min calaamaati alcayn oo ubadkaasi haleeshay. waxaa kaloo ka mid a ubadka in ay haleeshay caynta ama ishu ay haleeshay, waxyaabaha ku garan karaysaa in laga yaabaa bini aadamka ubadka ay dhaleen ama ubad ay qaraabo yihiin ama dad ay garanayaan ama waaliday u yihiin inay ku arkeen, laakiin dabiici oo xanuun loo malaynayo. waxaa ka mid a qodobka sagaalaada, ubadka oo xubnaha jirkiisa qaar ka mida dhiig fakanaya, ama indhahabaa dhiig ka imaanaya, ama sankaa dhiig ka imaanaya, ama dhegtaa dhiig ka imaanaysa, ama xubin jirkiisa ka mida aan daloolin baa dhiig kasoo daadanaya. in badanoo ka mid a baa ubadyada iyo ubadka la dhalay ee caruurta yaryarka ah dhiigga caynkaasoo kale lagu arkaa. dadku waxay umalaynayaan wax oo basharinimadii dabiiciga bini aadamka ku dhaco kale cuduro inuu yahay, laakiin cuduro ma ah.
dhiigga ubadka weliba dhiiggaas inta badan ubadka jirkooda iyo yacni nafsadooda xanuun kuma haya, kuma dhibtoonayaan. dhiiggii iska soo daatay baa la arkaya, sanku ama uu kasoo daatay ama dhegtu kasoo daatay ama xubno jirka kamid a uu kasoo daatay, weliba khaasatan saddexdan daloola mooyaane jirka kale markuu kasoo daadanaya ama la arkaya dhiig soo dareeraya, jirka haddaad fiirisa dalool kuma yaal iyo meeluu dhiig kasoo daadanaya, laakiin dhiiggii soo baxay unbaa la arkaya, waana dhiig oo biyo biyo ah. inta badan dhiiggii caynkaasoo kalena ubadka kasoo baxaya xubnaha jirkooda ha furnaada ama siyasa furnaanin, iyaduna waa min calaamaati alcayn weeyaan oo isha bini aadamka ay haleeshay. waxaa ka mid a ubadka inay il bini aadam ku dhacda lagu garan karayo ubadka habeenkii taaha ama riimaya. aad moodaa waxaa lay maanta idrin oo shaqo ku maqnaayo adu kuusoo shaqaynay oo ubad yar oo aana daal jirkiisa ka muuqanin, habeenkii markuu jiiftan wuu taahayaa bule ama wuu riimaya, oo in badana soo celceliyo howshaasay ku sugan tahay. ubadkaasna il baa haleeshaye qaabkan kuu tilmaami doono u quraan saaro inuu ilaahay ka qaadayo xanuunkaasi isha haleeshay. marka ubadka taahida badan ama riimida badan waxa weeyaan waa min calaamaati alcayn weeyaan. qodobka 11aad waxaa weeyaan ubadka oo lagu arkayo aamusnaan tiro badan, aamusnaan tiro badan lagu arkayo, ama uu yahay qof iska aamusan isagoo asalkiisa hore ahaa qof sheekeeya, bashaasha, fariid ah oo ubad la yaqaano maasha allah ah, haddana aamusnaan kusoo arooray kusoo aruurayo afki xirtay. ubadka inta badan aamusnaanta kusoo inkastoo yani markuu ubadka aamusnaan badan uu keeno bacdigeeda loo fasiri karaya ama loo fahmi karaya min calaamaat aljin inay jiro, laakiin asalka isha bini aadamkaay ku bilaabataa ubadka inay afka xirtaan ama hadalkaay goostaan ama gooni sutaaga iyo gooni joogitaanka ay jeclaystaan, iyadana inta badan waa min calaamaati alcayn inkastoo bacdigeeda ay waafaqayso calaamaat aljin. qodobka 12aad waxaa weeyaan ubadka oo lagu arkayo daa'iman inaysan qabanaynin wax gaajo ah. maanta 12 sacdaad imtixaanto oo waxba aadan siino koob biyo aadan u dhiibin, gaajoon maayo oo gurigiisu iska dhex fadhiya. ubadka intaba aan gaajo qabanin in wax lagu qasbayo mooyaane aan gaajoba qabanin waxa cunaysiina ku dheen ubadka yaryarkaana, iyaduna isha bini aadamka inay haleeshay bay daliil u tahay ubadkaasi. waxaa ka mid a qodobka 13aad in ubadka ay haleeshay isha bini aadamka daliil u ah laguna garan karayo ubadka oo la nacsiiyo labadiisa waalid mid ka mid ah, labadiisa waalid mid ka mida la nacsiiyo, ama hooyaduba markii guriga soo gashuu didaya oo cararaya aabihii buu gadaashii gelaya, ama hooyada marka macnaha aabuhu soo galo ayuu cararaya hooyada gadaasheeda buu tagaya. yacni ubadka oo yacni nacaya ama ka ooyaya labadii waalid dhalay midkiisa markuu arkayo, iyadana waa min calaamaati alcayn. weliba waxaa loo nisbeynayaa ishaasu inay waalidkaa kasoo go'day ama kasoo gocatay ubadkana ay haleeshay, iyaduna qaab looga samata baxo ayaa jirta biidni illahi tabaaraka wa tacala. marka haddaad aragto ubadka oo labada waalid midkoodii la nacsiiyey oo kale, iyaduna waa min calaamaati alcayn. waxaa kaloo ka mid a min calaamaati alcayn ubadka inay haleesho lagu garan karayo ubadkoo lagu arkaa qeybo ka mid a jirkiisa inuu googoynayo. way dhacdaa inta badan, ama cidida halkaa meelahaas oo kale ayuu ilkaha gelinayaa, wuu ruugayaa ilaa hilibka uu guro, mana dareemayo, dhiigna ka imaan maayo. ama gacmaha meelahan la laabato buu afka sidaa u gelinayaa, ama meelaha xubnaha geesahan oo kale camaacusha ayuu saas u qaninayaa, yacni wuu goynayaa, hilibki wuu go-ayaa, dhiigna ka imaan maayo, xanuunna kuma hayso, xanuunna kuma ay hayso. marka haddaad aragto ubad jirkiisa guraya oo aanan isdareemaynin, iyaduna waa min calaamaati alcayn alladii asaabat hada tifl, cunigaas ama ubadkaasi haleeshay bay ka mid tahay. waxaa kaloo ka mid a qodobka 15aad ee ubadka in ilku dhacday lagu garan karayo ubadkoo jirkiisa lagu arkayo qeybo ka mida inay madmadoobaanayso oo dhodhod leedahay. jirkiisa haddaad eegto mathalan halkan oo kale way madowdahay, waxyar markaa sii socta halkan bay madowdahay, jirkiisa dhodhod oo madoowa lagu arko, madowgaasna xanuun iyo dhibaato kale uusan ku haynin, bal waxaa laga yaabaa madowgaasi marka intaad ku aragto inuu baaba maalmo kadib aadna jirka qeybo kale ka mid kasoo baxay. ubadka caynkaasoo kale haddaad ku aragto jirkiisu
ee madmadoobaanayo iyaduna waa min calaamaati alcayn oo ubadka ku dhacday. inkastoo dadka waaweyn ay qeybo ka mida ay ka waafaqayaan qodobadan ubadka aan ku tilmaamay, laakiin inta badan ubadka ayay u badan yihiin arinkoodaasi qaabkay markaasi u tilmaamsanayaan. su-aasha waxaa weeyaan marka, in ay ubadku haleesho isha bini aadamku maxaa faabida oo sugnaansho ah laga helayaa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa sunnada nebigu calayhi asalaatu wasalaam? waxaa laga helayaa sunnada nebigu calayhi asalaatu wasalaam, nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam ayaa waxaa ku tufay malakul jibriil. adciyadii iyo ducooyinkii uu ku tufay oo nebigu uu barayna waxaa ka mid a in ilaahay subxaana wa tacaala laga magan galo, rabbi subxaana wa tacaala la weydiista inuu isha xasadka ah kaa leexiyo. xadiid warinaya axmed iyo muslim tirmidi ibnu maajax min xadiidi abi saciidin alkhudri radi allahu tacaala canhu wa ardaa. waxa uu nebigu yani ku tufay jibriil calayhi salaam biruqiya, wuu ku tufay, wuxuuna ku tufay isagoo aqrinaya malakul jibriil nebiga ku aqrinayo bismi illaahi arqiika min kuli daa'in yu'diik min shari kuli nafsin aw caynin xaasid allahu yashfiika bismi illaahi arqiik wallahu yashfiik. waana ducadaas duco ta'hiir lah, qof kastoo il isaga shakiyaayo hadduu isku aqriyaa in badanoo ka mid a oo nebiyo ku tuftuucaba ama jirka marsadaayo uu ka bogsoonayo. laba riwaayad baa soo arooray. riwaayadu warinayo alimaam bukhaari waxa uu leeyahay ana rasuul lah sal lla alay wasalam kaana yacuudu alxasan walxusein. nebiga wuxuu soo booqday labada wiiloo awowga u yahay ee gabadhiisa faatima ay dhashay ee xasan iyo xuseen ayuu soo booqday. markuu soo booqday ayuu duco ugu duceeyey isagoo ilaahay magangelinayo. riwaayada dib bay ka imaan doontaa qaabka sharaxaadu. waxa uu nebigu ku yidhaahdo ugu duceeyey uciidukumaa bikalimaati illaahi taama min kuli shayطaanin wahaama wa min kuli caynin laama. labadiinaan ubad ee awowgaan u ahay waxaan idinku magangelinayaa ilaahay kelmadihiisa dhammayska tiran ee taamka ah. waxaana idinka magangelinayaa shayطaan kulligiisa iyo waswaaskiisa ama gurguurashadiisa. waxaan kaloo ilaahay idinka magangelinayaa oo magan idinkaga dhigayaa wa min kuli caynin laama, il kasta oo wax ilaysatay dhulka dhigta ayaan ilaahay idinka magangelinaya. markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ina abaakumaa ibraahim kaana yucawidu bihimaa ismaaciila wa isxaaq. aabihiina oo nebiyullaahi ibraahiima ayaa sida tan oo kale wuxuu ugu aqrin jiray, uu markaasi ku aqrin jiray, ku magangelin jiray ilaahay labadiisa ubadoo nebiyullaahi ismaaciil iyo nebiyullaahi isxaaq calayhi wacalaa nabiyina afdal salaati wa aska salaam. saasaa laga doonayaa marka ubadku waalid haddaa u tahay, haddaad taqaanii, haddaa soo booqataaba inaad ku aqriso oo tidhaahdo uciidukumaa bikalimaati illaahi taama min kuli shayطaanin wahaama wa min kuli caynin laama. hadduu hal fardi oo ubad yahay wiilna yahayna uciiduka bikalimaati illaahi taama baad leedahay. hadday inan tahayna uciiduki bikalimaati illaahi taama, inta kale ayaa sidaa u dhamaystiraysaa. haddaad doonto gacmahaaga inaad shimcisood ku aqrisaayo ayaa ubadka korka u marinaysaa. haddaad doonto biyo tahliil baad ugu shafaysaa, korka baad u marinaysa, waad cabsiinaysaa. haddaad doonto saliid zaytuun baad ugu aqrinaysaa, kadibna korka baad u marinaysaa. inta badan bay way ka caafimaadayaan ubadku. waxaa kaloo ka mid a oo lagu daweeyaa intaan daawooyinka qaarkood aan u tegin isha bini aadamka. nebigu calayhi asalaatu wasalaam inay isha dadku ay ku dhacdo, xadiiskii kale daliilku ah waxa weeyaan nebigu calayhi asalaatu wasalaam ayaa maalin waxaa soo booqday malakul jibriil. ana jibriil ataa nabiyu sal alayhi wasalam ayuu nebiga buu u yimaadee, nebiga oo ah muqtaman mid murugaysan. markaasaa waxa uu ku yidhahday malakul jibriil ya muxamed maa hada algam aladii araahu fii wajhik. wejigaaga waxaan ka arkaya inaad tiiraanyaysan tahay, murugaysan tahay, ee muxuu yahay murugada kaa muuqata. markaasuu nebigu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam malakul jibriil alxasan walxusein asaabathumaa caynun. labada wiil awowgaan u ahay ee xasan iyo xusein
ayaa waxa ay markaasi ahaadeen kuwa asiibay isha bini aadamka oo ilbay la jiifaan. markaasuu malakul jibriil ku yiraahday sadiq bilcayn fa ina alcayna xaq, rumay nabi maxamedow oo runi dhab u qaada ishu inay jirto, ishuna waa xaq, qofkana way haleelaysaa. ee afalaa cawadtuhumaa bihaa-ulaa'i alkalimaat, ma waadan ku magangelinaynin yacni kelmadahani odhahyadan aan kuu sheegi doono ku bari doono. markaasuu nabigu yihi calayhi asalaatu wasalaam wamaa hunna yaa jibriil, jibriilow maxaa uu yahay kelmadaha odhahyada ii sheeg. markaasuu malakul jibriil ku dul aqriyo ku yiri nabigu calayhi asalaatu wasalaam qul allahuma dha lsulطaani alcadiim wاlmani alqadiim wdha lwajhi اlkariim waliyu lkalimaati الtaamaati wاddacawaati اlmustajaabaat caafi alxasan wاlxusein min anfusi اljini wa acyuni اlinsi. odhaahda ay kelmadaha ku aqri buu yidhaahday labadan ubad ee awooga u tahay isha la bukee la jiifaayo ku aqri. markaasaa nabigu calayhi asalaatu wasalaam wuxuu yidhi waan ku aqriyey, faqaamaa yalcabaani bayna yaday rasuuli lah sal alayh wasalam. markiiba lagu aqriyey way isaageen, ciyaar bay galeen inay isla ciyaarayaan nebi maxamed hortiisa calayhi asalaatu wasalaam. fa kayfa ayay ta'hiir leedahay ducadani ubadka isha haleeshay loogu duceeyayo. markaasaa nabigu calayhi asalaatu wasalaam isagoo ubadiis u dardaarmay yidhaahday cuuduu anfusakum wa nisaa'ukum wa awlaadukum bihadihi tacawud, ku magangeliya oo ku aqriya nafsadihiina, xaasaskiina ku aqriya, awlaadiina ku aqriya. tacawudaadkan oo kale wax lamida ma jiraan. waa nabi maxamed calayhi asalaatu wasalaam dhaxal laga dhaxlay oo ummaduna markaa ay ka dhaxashay, oona la ogaan karayo weeyaan sida iqaabka iyo nidaamka lagu ogaan karayo. su-aashii waxaa weeyaan marka sidee looga daweeyaa ubadku haddii calaamadahaas ay ku sugan yihiin, ama qof oo isagu weynu ku sugan yahay sidee looga daaweynayaa, siduu isaga daweyn karaya? samey arrimahana kuu tilmaami doono biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. ubadkaasi laba xaalad bay isugu jiraan. qaar markii intaysan isha ku dhicin yacni waxaa weeyaan laga magangelinaya ilaahay subxaana wa tacaala inaysan ku dhicin, iyo markay isha haleysho ama ay ku dhacday ubadkii la jiiftaan qaabkaad uga saari lahayd ugana daweyn lahayd. qaabka marka ugu horeeya looga daweynaya waxaa weeyaan intaysan isha ku dhicin ka hor, habeen walba ubadka waxaad ku aqrisaa intaysan jiifanin, waxaad ku aqrisaa mucawadataynka iyo aayatul kursiga iyo ducooyinka mashruuca ah. inaad gacmahaaga jamciso faatixada, sidaa u jamciso faatixada aad ku aqriso aayatul kursiga, oo aad ku aqriso mucawadataanka suurat likhlaas, suurat lfalaq iyo suurat nnaas aad ku aqriso, oad ku tufto. ubadka ayaad korka u marinaysaa. xifaadatun min allahi baa ilaahay gelinayaayo, ilaahay baa xifdinaya min anfusi ljini wa acyuni linsina, ilaahay baa ka celinaya. laakiin gaar ahaan waxaa aada u wanaagsan ubadka hadday 5 sano 6 sano ka weyn yihiin wax qabanayaan inaa adu u laqinto, aad barto, kuna tarbiyeyso habeenkii inay aqristaan. taasa ilaahay kaaga kaafina in badan oo kamid aad ku tarbiyeyso. haddii weli aysan qaban karin ubadka yaryar yihiinna adiga ayaa u samaynaya. waxaa kaloo uga daaweyn kartaa qaybta labaad ah ubadka inaad u qariso wax walba oo maxaasintoodii wanaagooda ay helaan ama ay sameeyaan. inaad u qariso waa asbaabaha iyo sababaha ubadkaasi inaysan il bini aadam aysan ku dhicin aada uga hortegi karayso. wixii maxaasintoodii wanaagooda, mathalan iskuul buu dhigtaa, iskuulkuu dhiganaya ayuu maakis fiican iyo buundooyin fiican buu keenay, hala wareegin meelaha. xataa haddii dadkay ogaadaan kugu tahniyadeeyaan, ubadkaaga liidoo hoos dhig oo waxanba uusan keenin, waxna ma yaqaan ubadkayga dheh, si markaasi maxaasintooda loo qariyo. haddaad macalimiinta la heshiin karayso, dugsi hadduu yahay, iskuul hadduu yahay, meelo sare hadduu ubadka u keeno, macalimiinta kula ballan inaanan ubadkaasi meel sare la gaarsi si isha bini aadamka aysan u haleelin. waayo oo ilmo kuloodabaa jira oo booska isagu u taga tamaninaya oo jeclaysanayo, markii ay gaari waayaana qalbiga maroor dilaacmayo ishood inay haleelayso.
marka waxaa ka mid a ubadka waxyaabaha ku daaweyn karto intaysan xanuunka ku dhicin ka hor inaad u qariso wax kastoo wanaag la yimaadaan, aadan ka shaacinin oo aadan ku faanin, waxyaabahay ku dawoowayaan bay ka mid tahay. waxaa kaloo ka mid a ubadka waxyaabaha lagu daweyn kara markay ishu intaysan ku dhicin ka hor, inaad u laasimto oo aad mar walbaayo adigu aad isku laasimisay inaad ubadka ku tiraahdo, afkaaguna aad barto waalid haddaad tahay, maa sha allahu laa quwata ila billah, maa sha allah laa quwata ila billah. shay walbii wax walbay samaynayaan inaad shaygaasi afka aad uga celceliso ubadka, inaad ku dadaasho biidni illahi tabaaraka wa tacaala. intaysan isha ku dhicin ka hor waxyaabahaad oga hortegi karaysa waxaa ka mid a subaxii intaysan iskuulka aadin ama dugsiga aadan aad u dirin, ilaahay u wadeeca dhig. rabbi subxaana wa tacaala ammaankiisa iyo magangeliyadiisa geli, oo markay guriga ka baxayaan ama aad iskuulka geyso oo aad kasoo tegaysid ama dugsiga aad geysad kasoo tegaysid, waxaa sidii laba qof ismacsalaameynayoo kale ayaad waxaad leedahay astawdicukum allah aladi laa tadiicu wadaa'icuh. ilaah baa idinku ammaanaysta ubadkayagiyo, ilaah baa idinku ammaanaysta allihii wixii lagu ammaanaystay aan marnaba dayacaynin. ha ka cajisin, oo waxyaabaha sababu noqon karaya il xasidi il jinni wax walba haleeli laha ubadka, in ilaahay subxaana wa tacaala magantiisa aad u wadeeca dhigtay inuu ilaahay kaga xifdiyo biidni illahi tabaaraka wa tacaala. kelmadda odhahda ha lagu magangeliyo ubadku. hadday 5 sano ka weyn yihiin, ubadka ku laazimi oo bar weysada. 5 sano hadday ka weyn yihiin, weysada bar. weysada waxyaabaha u kaalmayn karaya bay ka mid tahay ubadku in ilaahay xifdiyaayo. bal shaytaanku wuu kala garanayaa qofka aan weyse qabin oo calaa gayri dahaara ku sugan iyo qofkii yani cala dahaara ku sugan. qofka inuu weyse qabo xifaadaysan yahay iyo qofka inuu weyse la-aan yahay, xataa shaytaanku wuu kala garanaya dadka suuradoodii, maadaama isaguna arkaya inagoona aanan arkaynin. marka ubadka 5 sano hadday ka weyihiin, tarbiya uga dhig inay markay iskuulka in dugsi intaysan ahaadin ka hor ay weysaystaan, weysadooduna ay dhowrtaan. in badanoo ka mid a waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala ku xifdinaya bay kaga mid tahay min anfusi ljinni wa acyun alinsi. waxyaabaha lagaga hortegi kara waxaa ka mid a intaysan isha ku dhicin ka hor, in ubadka la bara isticmaalka zalizaytuunka, in cunto lagu cuno iyo in jirka dihaan ahaan iyo marsasho ahaan la marsado. sidoo kale ubadku in la baro isticmaalka xabasowdada isticmaalkeeda in la baro iyo qaabka loo isticmaalayo, iyo in ubadku la baro tahliisha sidii qur-aanka ugu tufan lahaayeen iyagu ay u isticmaali lahaayeen. 3daas xaaladood haddaad bartay ubadka ku tarbiyoobaan, way kaa kaafinayaan inaa adigu mar walba aad xifaadada ilaahay aad geliso, ilaa ubadka inuu yahay qof hilmaan badan mooyaane. khaasatan ubadka aad bartood ku tarbiyeyso adkaarta marka la labisanayo la aqristo, ducooyinka marka suuliga la gelayo la aqristo, marka banaanka loo baxayo la aqristo, marka guriga lasoo gelinayo la aqristo, oo mar walba ubadka markaasi ilaahay subxaana wa tacaala aad ku xirto. waxyaabaha ilaahay kaga magangeli karo inaysan isha bini aadamka ku dhicin. waxaa kaloo ubadka tarbiya uga dhigtaa, ila ubadka biyo bay cabaan oo ay cabaan, adiguna biyo baad cabtaa. ubadka guriga biyaha la wada cabaya dhammaantoodiiba inaad adigu aad barto inaad ku tufta tahliil ka dhigto. mathalan 10 liter ama 5 liter ayaa guriga yaala, ubadkao dhan bay ka wada cabaan, oo qofkii oon qabta halkaa buu tagaa. habeenkii oo kale ku talagal adkaarku aqri 5 litar 10 litar inta la dhamaysanayo waa waqti intaasi cabaya. markastay dhammaato ku tuf tahliilaad ku tufto wax badan uma baano. ayatul kursiga, mucaawadataanka, faatixada, in yani aayaadka tacawudaadka yani waxa weeyaan taxasunaadka iyo aayaadka ilaah dukuri ama adciyada taxasunaadka inaad waxyar aad ku aqriso kaama qaadanaysa 5 daqiiq wax ka yar aad ku tufto. kulligiin aad wada caabitaanna caafimaad baa ilaah idin wada gelinaya biidni illahi tabaaraka wa tacaala. cafwan walaalaha insha raxmaan, qaybta ugu dambeyso oo ah markii ay ubadku ay ku dhacdo isha bini aadamka, oo la hubsaday inay isha bini aadamka ku dhacday, maxaa lagu daweyn karaya?
ilaan intii hore waa ka hortag cafwan intii hore waa ka hortag oo qofka markaasi uu u sameynayo intaysan isha ku dhicin. laakiin su-aashii waxaa weeyaan markii ubadka isha ku dhacdo kadib maxaa lagu daweyn karayaa? qofkana qaabka iyo asbaabtee uu u daweyn karayaa? qaabkii asbaabta u daweyn kara awalan waa kuu tilmaamaya. adoon mucaalij u tagin baa gurigaaga ubadkaaga meel kastoo joogta aad ku daweyn karaysaa. dadka su-aalahooda waxaa ka mid a markay ku weydiinayaan ubadka xanuunkoodii inay ku leeyihiin meel masaajid ka dhow ma joogno, meel culamo iyo dad qur-aan yaqaano mana joogno, meel duhur oo qurbaha baanu joognaa. war qur-aanka ilaahay musxafkana waad ka aqrin karaysaa, haddaad doontood xifdisantaana waad aqris karaysaa. adiga ayaa ubadkaaga kaafin karoona ku filan, naftaada adiga kaafin karoo ku filan. ilaa qofkii shaytaanku radiilka ah ee dhibaatada badan ciyaal suuqa ah uu qofka jirkiisa ku bata in looga kaalmeeyo u baahan yaha mooyaane. markii ubadku ay ku dhaco ishu qaabkee baad uga daweyn karaysaa? awalan weel baa biyo kusoo shubanaysaa. weelkaas biyaha aad kusoo shubatay waxaad ku aqrinaysaa aayaatu tabtiilu lxasad, aayaadka isha ama cawridu burinaya marka la isticmaalo ama la aqristo, iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala aad rajeynayso inuu kaa buriyo ama uu baabi'iyo ishaasi. aayaadka waxaa ka mid ah inaad ku aqriso weelkaasi biyaha ku jira tahliisha aad ku aqriso am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadli. aayadaasoo kaamilan inaad ku aqrisood ku tufto weelka. waxaa kaloo ku aqrinaysaa aayadda kaloo ah wadda kathiirun min ahli lkitaab low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min cindi anfusihim. aayadda oo dhammaystirana waad ku aqrinaysaa. waxaad kaloo ku aqrinaysaa wain yakaadu aladiina kafaruu layusliquunaka biabsaarihim lama samicuu dikra wayaquuluuna inahu lamajnuun. aayadana waad ku aqrinaya, waad ku tufaysaa. waxaad kaloo ku aqrinaysaa aayadda kale oo ilaahay qur-aanku ku sheegay waqaala niswatun fi lmadinati imra'atu lcaziizi turaawidu fataha can nafsihi qad shaqafaha xuba. aayaadkaasna waad ku tufaysaa. waxaad kaloo ku aqrinaysaa aayadda kale ilahay qur-aanku ku sheegay maa yawadu aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wala lmushrikiina an yunazla calaykum min khayri min rabbikum wallahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa. ilaa dhamaadka aayadaad aqrinaysaa waad ku tufaysaa. waxaa kalooad ku aqrinaysaa waad ku tufaysaa aayaatu tabtiil lxasad ka mid a walow anahum raduu maa aataahum allahu warasuuluh. aayaddaana waa dhamaystiraysaa, waad ku aqrinaysaa. waxaa kalooad ku aqrinaysaa ugu dambeeya dalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa wallahu du lfadli lcadiim. aayaadkaasi oo kaamilan baad weelkaasi ku aqrinaysaa. kadib inna waad cabsiinaysaa ubadka waad siinaysaa, inna jirkaad u marinaysaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala. ishaas way buraysaa muddo haddaad ku wado. haddaad doontan inta aayadooda haddaan soo sheegay baad waxaad ku aqrinaysaa saliid zaytuun oo xabad soodaad ku dartay baad ku aqrinaysaa. kadibna habeen wal markuu jiifanaya madaxan waad ugu shubaysaa, jirkan waad u marinaysaa. in badanoo ka mid a ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka qaadayaa oo wuu ka burinayaa yacni waxaa weeyaan ishaa ama cawridaasi haleeshay ubadku. waxaa kaloo ka mid a ishaasi inay burto ducadii hadda aanu tilmaamayo waa dib ugu laabanayaa oo ahayd nabigu inuu ku aqriyay jibriil calayhi salaam. malakul jibriil uu ku aqriyay nabigu uu ahaa bismi illaahi arqiik min kulli daa'in yu'diik min shari kulli nafsin aw caynin xaasid allahu yashfiika bismi illaahi arqiik wallahu yashfiigu nabigu ku aqriyay. ama ducadii kaloo nabigu xasan iyo xuseen ku magangelinayo ahayd uciidukumaa bikalimaati illahi taamah min kulli shaytaanin wahaamah wa min kulli caynin laamah. iyaduna waxay ka mid tahay adciyada burinaya isha bini aadamka meesha ay haleeshay. waxaa kaloo ka mid a in qofku loo aqriyo ama isagu isku aqriyo suurat alfaatixa iyo mucaawadateynka birabilfalaq birabinnaas iyo qul huwale uu gacmaha jamciyo ku aqriyo ku tufo korkana marsado ama loo mariyo. iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha isha bini aadamka burin karaya. waxaa kaloo ka mid a ducadii kale hadaayi aanu tilmaamaynay ku xigtay ee nabigu calayhi asalaatu wasalaam isagoo murugeysan malakul jibriil u yimaaday kadibna uu ku yidhaahday ducadaasi ku aqriyo ahayd allahuma dha lsulطaani alcadiim wاlmani alqadiim wdha lwajhi اlkariim waliyu lkalimaati الtaamaati wاdacwaati اlmustajaafaat caafi. marka alxasan walxusein meeshuu nabigu macnaha xadiiskiis kusoo arooray inaad tirahdo markaasi ubadka kan xanuunsana caafi hebel iyo hebel ama iblaayihi ablaaya min anfusi اljini wa cayun اlinsi. sidaasi inaad ku aqriso iyaduna waa waxyaabaha sababku noqoray ishaasi ubadka haleeshay in ilaahay subxaana wa tacaala
uu markaasi ka buriyo. intaasi tacawudaad haddii aad samayso ilaahay subxana wa tacaala wuu ka burinayaa ishaasi. ama su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan, jinku isagu ma asiibi karaa ishiisa ma ku asiibin karayaa oo mooyuu ku ilayn karayaa insiga? maxaa yeelay mucaalijiinta agtooda waxaa macruuf ka ah inuu jiro caynu lcaashiq ljin, isha jeclaata jinka kasoo go-da ee jeclaata insigu wayna haleeleysaa. xaqiiqa jinku ishiisu way haleeleysaa insigu. waxau nabigu leeyahy calayhi asalaatu wassalaam, satru maa bayna acyuni اljini wa bayna cawraati bani aadam ida wadaca axaduhum thawbahu an yaquulu bismi اllah. sadriga iyo teedka iyo xijaabka u kala dhaxeeyo aragtida iyo isha, yacni jinka iyo bini aadamka cawradiisa inaysan is arkin waxaa weeyaan markuu qofku dharka uu iska siibayo, hadduu bismillaah yidhaahdo, jinka iyo waxyaabaha ka agdhow ee taalacanaya arkaya awoodu ma lahaanayaan magaca ilaahay uu xusay awgeeda inay cawradiisa taalacdaan. halka waxaa ka dhalanaysaa haddii qofka bismillaahi isagoon dhihin dharku iska siibo, cawradiisa jinka wuu taalacanaya, wuu arkayaa, hadduu doonana ishiisi u caashaqana wuu ku ileysan karaa qofkaasi cawradiisu. haddii isha bini aadamka qaabka ugu dhacday iyo qaabka looga daweeyey waanu tilmaamnay, laakiin isha jinku haddii qofka haleesha qaabkee loogu tilmaamaya? waa isha ilaahay baa daweyn karaya bacda qadaa illahi wa qadari, waa la daweynaa, waa lala tacaalaya haddii la yidhahdo. waa isha ugu darnaanshaha badan, ugu dhibaatada badan ee qofka dhibaato badan oo kala kulmayo. waxau leeyay nabigu calayhi asalaatu wasalaam xadiidan ukhraa, waa min xadiidi axmed ibn xambal uu warinayay tirmidi, satru maa bayna acyuni اljini wa cawraati bani aadam, yani sadriga iyo yani teedka u dhaxeeyo, yani ishii aragtiday arkayaan jinku iyo cawraadka bani aadamku, waxyaabaha sidri u noqonaya, xijaabi teed u noqonaya waxa weeyaan markuu qofka uu gelayo suuliga inuu yidhaahdo bismi illah, ama uu aqriyo ducadii ah allahuma inii acuudu bika min alkhubthi walkhaba'ith. haddii laakiin uu ka tagu aqrin kari weeyo, jinka saakinka ku ah ee degan suuligu awood buu wuxuu u yeelanayaa qofkaasi ee xaajada gudanaya cawradiisa inuu taalacdo, cawradiisa inuu taalacdo ayuu awood u yeelanayaa. hadduu taalacdana macnaheedu waxaa ka dhalanayso bini aadamka sidii wax u caashaqayaan ama u jeclaanayaan oo kale ayuu jinkaasina u jeclaanaya, qofkaasi cawradiisu taalacanayo, ishiisana way haleeleysaa. marka adigu iyo yani jinka inay ishiisu ku haleesha ama kugu dhacdayo, waxyaabaha sababkuu noqon karayo kaga hortegi karaysaba intaysan kugu dhicin waxa weeyaan markaa dharkaaga siibaysina inaad tirahda bismi illah. wakadalika waxaa ka cadfan halkaasi markaad geshanaysa inaad tirahda bismi illah, oo shay walba markaasi shayga markaa lagu cadfayo maqsadkii macnihiisa laga fahmayo. haddaad tirahda markaa dharka shiibaysa bismillaahi, bimacnaa magaca ilaahay baa dharkan ku siiba, yani awood aan ku siiba dharkaan malihi iyo xeeladba, laakiin ilaahay subxana wa tacaala baa awooddiisaan ku siibaya magaciisa. jinka marka awooduma yeelan kara meesha magaca ilaahay lagu xusaayo inuu soo dhex maquurto oo ficil uu ka sameeyo. kadalika saas oo kale ayaa qofka suuliga gelayana ducadaasi, adciyadaasi inuu aqristo looga baahan yahay, mar walbana uu qofka ku dadaburo una ku baraarugsanaado. mawduuca marka caawo waan ku dheeraaday, sababtii asbaabtaan ugu talagalay ugu weynna waxay ahayd in la ogaado xanuunada ubadka ku dhacay ee la taala dhacayaan ama la jiifaan, dadkuna ay moodayaan xanuunadan dabiiciga isbitaaladii dadkii u baahan karayaan. biidni illahi tabaaraka wa tacaala walaalaha waxaan u furayaa intaa kadib masaa-ishii su-aalaha ku saabsan ee mawduuca caawa ah, ama ishii iyo cawridu bini aadamka haddii ay hayso ama lagu sheegay sidii qaabku isaga daweyn lahaa inaan kala taliyo, oo qaab ahaan ilaahi subxaana wa tacaala baa ka daweyn karaya, laakiin wixii tala ah walaalaha muslimiinta la siiyo. waliqowli tabaaraka wa tacaala inama almu'minuuna ikhwa, waxaana walaalo lagu yahay waxaa weeyaan in wanaag laysfaro, xumaanta layska reebo, tala wadaagna walaalaha muslimiinta la noqdo oo
wixii markaasi iyagu ku daawowayaan kitaabkooda allah subxana wa tacaala usoo dejiyey iyo sunnada nabigu caleyhi asalaatu wasalaam asaxiixa. waana noo bilaabanaya masaa-isha su-aalaha way furan yihiin, walaalahana way weydii karayaan. jazakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum wa shakara allahu fi sacyikum. waana soo dhawaan karaysaa insha allah, su-aalaha way furan yihiin. waxaanu soo galnay insha allahu tacaala qeybihii su-aalaha. insha allah walaalaha duceyna dhammaan idinkan ilaahay subxana wa tacaala idinka abaalmariyo. waana waajib in walaalaha muslimiinta daafaca caalamka meel kastay joogaan loo gargaarayo wixii diintoodii yani waxaa weeyaan ishkaal kaga jira, khaasatan arrimahan shu-uunta ku saabsan saddexdaasi in insha allah walaalaha lagala taliyo waxay ku daawoobi lahaayeen biidni illahi tabaaraka wa tacaala, taasoo waafaqsan kitaabka ilahi sunnada nabigu caleyhi asalaatu wasalaam iyo acshaabta dabiiciga ah ee diinteenu ay tilmaantay biidni illahi tabaaraka wa tacaala. masaa-ishana way furan yihiin, walaalahana way weydii karayaan shu-uuntan arrimahan ku saabsan. jazakum allahu khayra. qofka muslimkana mar walba waa inuu ku baraarugsanadaa una niyadiisii qalbigiisa geliyaa inuu isaga isdaweyn karayo iyo inuu ubadkiisaba daweyn karayo, waayo diinta ilaahay subxaana wa tacaala barashadeedii ku dhaqankeeda iyo gaarsiinteediiba qof kale uga yani liidin karaya ama uga hoos dhici karaya ma jiro ilaa qofkii isaga dib isku dhiga mooyaane. ubadkaagana waad ku daweyn karaysaa, nafsadaada waad ku daweyn karaysaa, yacni qaraabadaada iyo ehelkaada waad ku daweyn karaysaa. cid walba oo markaasi ilaahay kitaabkiisa barata, sunnada nabigu caleyhi asalaatu wasalaam baratana way isku daweyn karayaan dhammaantoodii. waana wax diinta ilaahay subxaana wa tacaala waasic ku ah, aanan ciriiri ku ahayn. aduga had iyo goorsaad isku hoos dhigto unbay ku xiran tahay, haisliidin meel hoosna haisgeynin. ilaahay baa maqaamkaada kor ka dhigay, sida qalbigaaga ilaahay subxaana wa tacaala ugu soo bandhigto unbayna ku xiran tahay. sida ilaahay subxaana wa tacaala qalbigaaga ugu soo bandhigto ayayna ku xiran tahay, oo bimacnaa iimaanka iyo rumeynta ilaahay aad rumaysan tahay oo wax walba inaad ka bariso ilaahay ku siiyaayo. waxyaabaha waxay ka mid tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhawaado, bal yaqiin dhaba lala yimaado inuu ilaahay subxaana wa tacaala xanuunka ku hayo isaga keligii kaa qaadi karo, isaga keligina ku imtixaani karo. walaalaha muslimaad ka mid ah masalada bilowday su-aasha way weydiinaysaa. waxay leedahay sheekh gadaal ayaan kasoo gaaray waxaan ku weydiinayaa ilmaha jiriqsada oo ilkaha isku yani lisa ka waran, mahadsanid. walaashu waxaan leeyahay biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxaa la yihahdaa ilkaha yani jiriqsada ama ilkaha isku ruga, waana qaabka iyo nidaamka loo yaqaano bani aadamka, khaasatan weliba ubadka. hadduu ilkaha qariidanayo
qariidashada waa la yaqaanaa ama jira dhiqsiga habeenka qofka iska jiifan iska warqabin gowsaha buu isku rugaya qarraq buu ka siinaya qaabkaas horta ficilkaasi waxaa iskale jinka ayaana qofka ku sameeya ficilkaasi macnaheedu waxaa laga fahmaya qofka jira dhiqsaduuna badan yahay hadduu ubad yahay hadduu dad weyn yahayba intii badanba jin baa jirkiisa ku jira qofkaasi laakiin ubadka markii lagu arkaa waxaan la dardaarmaya walaasha awala su-aashaasi marka ubadka lagu arkay dadka waaweyn xataa marka hore waxaa fiican qofka inuu dhaktarka ku hormaro qofkaasi shaybaar loo diro saxaradiisa la baaro inta badan markuu qofka calooshiisa goryaan dhib badan uu ku jirana way sababi karaysaa inuu ilkaha qariito oo goryaanka habeenkii soo baxayo qofka markuu nasashada ku jira oo caloosh yacni kasoo doonanayo quudka oo gudkiisa kasoo baxaya wuu sababi karaya qofka hadduu goryaan calooshiisa ku jiro inuu ilkaha qariito marka ubadka markii la baaro haddii wax goryaan laga waayo ilkaha qariidashadeedana daa'iman uu yahay mar walba saas sameynayo hadduu qof weyn yahay hadduu qof yar yahayba macnaheeda waxaa laga faa'iidsanayaa cinda culimada cilaajka ay garanayaan in qofkaasi jin jirkiisa uu ku jiro lala tacaalana u baahan yahay biidni illahi tabaaraka watacaala waana xaalada jinka insha allahu tacaala walaalaha muslimaad kamid ah su-aal kala weydiinaysa waxay leedahay asalaamu calaykum sheekow cunuga iga jiran indhaha ayaa hadba si loo qabto kasoo baxyo ayaa wareeriyey igu soo duceeya waxaya allah baa garanayo biidni illahi tabaaraka watacaala ubadkaasi mar walba kasoo baxyada indhaha kasoo baxaya ama qeybo kamid a jirka kasoo baxaya ilaahay subxaana watacaala baanu ku weydiinaynaa biasmaa'ihi alxusna wa sifaatihi alculaa inuu ubadkaasi xanuunka haya ilaahay ka qaadayo isaga ayaa gacantiisa ku jirta shifada kaamilka iyo caafimaadka kaamilka ah ciduu doonana usoo dadejinaya wuu siinayaa ciduu doonana ilaahay subxaanahu watacaala wuu imtixaanaya addoonkaasi si iimaankiisa loo ogaado intuu ilahay agtii ka joogo ka rumaysan yahay marka ilahi subxana wataala ku caafiya biidni illahi tabaaraka watacaala markii dhulaaxadaha ama nabraha iyo kasoo baxyada saasoo kale ubadka uga soo baxayaan xaqiiqata inta badan waxaan garanayaa in uu u badan yahay inta badan isha bini aadamka ubadkaasna waxaa ku dadaashaa laba sifo zalizaytuun aad ku aqriysa suurat albaqara aayaadka haddaayan kuu sheegay adciyadii oo kale oo nabiga ubadka ku magangeli jiray oo kale inaad sidaasoo kale aad yacni ugu aqriso ubadka sidaasoo kale oo aad ubadka aada ugu aqriso markaad zalizaytuunka ku aqriso meelaha xubnahaasi oo dhan aada u mariso ama biyo weel tahliil inaad ku shubto kadibna aada ubadkaasi mar walba inaad markaasi aad tahliishaasi wejiga iyo qeybo kamid aad u mariso ilahi subxana watacaala baanu weydiinaynaa biasmaa'ihi lxusnaa inuu ka caafiyo ubadkaasina caafimaad taamusi insha allah jazakum allahu khayra nacam masaa-ishu way furiin walaalana way weydiin karayaan walaalaha muslimaad kamid ah ee su-aal kala weydiinaysa waxay leedahay asalaamu calaykum sheekh cabdifataax ciyaalka qalqaaliga ah aan waxba maqlaynin si walbo loola hadlo maxaa lagu sameeyaa waa 2 jir allahu mustacaan walaal ilmaha markay saa qalqaali u yihiin ama aada u fagfag badan yihiin ama aada u orod badan yihiin xaqiiqatan inta badan mar waxaa keento dabiiciga basharinimada waad dhegeysataan filayaa ama inaad dhegeysan doonto insha allahu tacaala muxaadaradu kaga hadlay sheekh mustafa xaaji ismaaciil xafidahu llah oo kaga hadlay ataaqaat almuhadara awoodaha la doonayo ama in la burqiyo ama lasoo saaro awoodda leh ubadka markay yaryihiin energy waxaa ku jiro jirkoodii aan dadka waaweyn ku jirin oy doonayaan mar walba inay burqiyaan bal sheekh wuxuu tilmaamayaa markii ubadka curur asaasi inay u dheelaan u ciyaaraan ay doonayaan haddii la caburiyo oo la celiyo meel lagu naxabisa ma la garaacayo yacni wixii uu burqin lahaa awooddu burqin lahaa hadduu isku celiyo wuu ku xanuunsanayaa
ayaa macnaha inta badan laga fahmaya. marka hadduu qalqaali yahay ubadkaasi biidni illahi tabaaraka wa tacaala 2 sanana uu jiro inaad aada ugu sabarto korato ilaa 5 sano 6 sano ka gaarayo. 5 sano 6 sano markuu gaaro inta badan ilmaha way soo degaan oo caqligiisu xogaa uu soo yara kamaya, wax badan buu fahmayaa, u yara adkaysta. haddii laakiin 5 sano 6 sano markuu dhaaf weli qaabkii sidii uun diditaankii qalqaalinimadu ku sugan yahay, biidni illahi tabaaraka wa tacaala cunugaasi qur-aan inaad saartaan baad u baahanaysaan, ama idinku aad saartaan ama walaalaha muslimiinta aad u geysaan oo la saara biidni illahi tabaaraka wa taala. intaas ka horna waxaad mar walba aad ku ducaysataa, asigana aad yacni usku talagashaa habeen walba markuu jiifanayo, sidaa daaya tilmaamay gacmaaga inaad jamciso mucaawadateenka bilfalaq birbinaas iyo qulhuwalle iyo aayatul kursiga iyo faatixada inaad ku akriso korka u mari, isagoo jiifana ilaahay korkiisa ku bari in ilaahay uu kuu dejiyo. waxyaabaha ilaahay waalidku ka aqbali kara bay ka mid tahay, waxyaabaha ilaahay waalidka uu ka aqbali karo ayay ka mid tahay. ilaahay baan kuu rajeynaya subxaanahu jala thanaau inuu kuu dejiyo ubadkaasi insha araxmaan. marna waxyaabahaas yaryarkoo jirkooda awoodu ku jiro iyo energy ku jiro inay burqiyaan ay doonayaan ayaa sababaysa, marna xanuun wuu sababi karaya, laakiin inta badan waxaa loo badiyaa in uu burqinayo awooddaasi un jirkiisa kasoo saara energyga uu doonayo. marka insha raxmaan waanu kusoo duceynayna, wixii talaadan waana la wadaagaysaa ee ducooyinkaasi iyo inaad adkaarta ku akrisana mar walbana ku dadaal. jazaak illah khayra. walaasha masalada way soo waadixisay, way soo dhamaystirtay. waxay leedahay inantu waa horta inan weeyaan, inan maaha, waa gabadh. waxay leedahay mar walba ma jira dhiqsato, waa gabar laakiin waqtigay jiran tahay ayay jira dhiqsataa, rinna waa ku dartaa. taasina waa taada ku tilmaamay oo labada xaaladoon ku kala saaray. haddii mar la arag ay tahay inta badan wuxuu noqon karayaa gooryaanka caloosha, weliba markaad baarto haddii ma jira lagu yirahdo unbaa arrinka kale jinka noqon karaya. laakiin haddii aad baarto gooryaan waay lagu yirahdo caadi ay noqoto, khalaas gooryaanka baa loo nisbeynayaa. ama midan kale ay ku dareyso oo ah yacni riinkana inta badan de waxaa laga yaabaa inuu ka keenayo, maadaama habeenkii godkiisu kasoo baxay gooryaankayo waxyaaba badan quud uu soo doonanayo, wuu sababi karaa jira dhiqsiga inay la socoto. marka insha allah ubadkaasi baar, kadibna haddii gooryaan laga wahelana waaba khayr, waa ka daweyneysaa. haddii laga waayana sheegadaasina soo lalaabato inta badan wuxuu noqon karayaa jinka biidni illahi tabaraka watacala. rabbi hakaaga samata bixiy. jazaak illah khayra. walaashaana masalada way soo dhamaystirtay. waxay leedahay habeen walba inta aad sheegtay waan ku aqriyaa bay leedahay oo adciyada ah. wad insha araxmaan, ilahay kuma dayici doono. ilahay iimaankaaga buu fiirinaya, iimaankaaga buu fiirinaya. habeen walba aduu ku celcelinaysid oo aad akrinaysid baa laga yaabaa weliba in lagu sii imtixaanayo, dhibka uu sii socdo. waxaad ogaataa ilahay inuu imtixaan kugu talagalay, imtixaanka inaad ka gudubtana ilahay uu doonayay. insha raxmaan kuna sabr. jazaak illah khayra. cafwan insha allah tacaala walaal dhamaan walaala way soo dhaweyn karaya biidni illahi tabaraka watacala. mawduuca ku saabsan arrinkaasi ubadka iyo xanuunadaha insha raxmaan waanu kala talinaya insha allah. ubadkan ilaahay subxana watacaala baa u rajeyneynaa mar walba inuu ilaahay subxaana watacaala ka samata bixiyo. waxaalada xaqiiqatan maanta naadir aanan ahayno in badanoo kamida bini aadamka jirkiisa ku taagan ama xanuun ahaan ay u dareemayaan. taasina ay mudan tahay waalidka inuu gaashaan badan uu ka sameeyo, aada uga gaashaanto xaqiiqatan inuu markaasi ubadka uu dhalay ka daweeyo, ubadka yacni waalidku u yahay u ka daweeyo,
ubadka qaraabada u yahay walaalihii dadkii qaraabadiisa alaa inuu ka daweeyo inta muslimiin uu garanayana uu ka daweeyo isagaa qofka awoodi karaya inuu ka daweysto hadduu systemka nidaamka qaabka loogu tilmaamay uu raacay isagoo ilaahygiisa kaashanaya subxaanahu jala thanaa inuu isaga caafiyo isagana garab siinayo taas weeyaan tan ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa u jecel badaya jazakum allahu khayran masaa-ishu way furan yihiin ee ku saabsan mawduuca idiin muuqda wayna walaalahana way weydii karaa jazakum allahu khayran wacalaykum asalaam waraxmat ullah wabarakaatuhu walaalka xasan wuu soo dhawaanaya jazakum allahu khayra wacalaykum asalaam waraxmat ullah wabarakaatuhu dhammaan walaalaha waa soo dhawaanaya jazakum allahu khayra insha allah waqtigan mawduucan ugu talagalnay ilaa muddo ama qiyaastii hal sac ama hal sac iyo bar oo kale ayaan ugu talagalay biidni illahi tabaaraka watacaala welina waqtiga wax yar baa iga dhiman insha allah walaalaha masaa-isha ay markaasi weydiinayaan arrimaha ku saabsan insha allah intaan awoodo ama karaankaygaan insha allahu tacaala wadi doonaa jazakum allahu khayra بإذن الله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا إن شاء الله مسألة موضوعة انتصبان إن شاء الرحمن كسوق وقبينية إلهي سبحانه وتعالى بان ويدين سننا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله الكريم ولا البان في ليا إن شاء الله وقت سوق وقويرة بقدار بمسألة ديرك سوقرتي جزاه الله خيرا وقود شوابا يا كدم إن شاء الله سوق وقبينية walaashaas waxay leedahay waxaa haystaa wiil 3 jir ah ilaa yaraantiisa markii banaanka loo bixiyo ama qof cusub noo soo booqdo habeenkii wuu soo ooyaa kama seexdo ilaa hadda uu 3 jir yahay banaanka markaa geeyo habeenkii wuu soo ooynaya adiguna waa tilmaamaysaa waadna ilaahayna subxaana watacaala wuu ku yara dareensiiyey in markii ubadka banaanka u saartaba ishu markaa jirkeeda ku halooleyso adiga keliga ma ahe qof kasta ubad dhalay calaamadaha iyo caynkaasoo kale wuu haystaa haddaanu waalid baan ahay aaba baan ahay ubad waan leeyahay ubadkii qaarkooda markii dibadda loo saaro habeenkeedii saasoo kale ma ay seexanayaan ama way soo sasayaan ama way ooyayaan waa calaamaadka lagu garanayo ilmaha jirkoodii inta badan ay u nugushahay yacni isha bini aadamka ama cawridu ay u nugushahay marka ubadka qaar baa kala adkaysi badan hataa isha markii ay haleesho kale xataa iska dafcin karaya jirkooda ciyo aan haleeli karaynin iyo qaar durbadii bay soo dhiganaysa marka ubadka waxaan dareemayaa khaasatan inankaas sheegaysay oo macnaha mar walba banaanka u dhacda arrinkaasi marka waxyaabaha haday ka hadlayno bay kamid tahay ubadka maxaasinta uu leeyahay wanaagyada uu leeyahay in loo qariyo haddii ubadku qurux badan yahay oo kale ama buuran yahay ama uu cad yahay oo kale markaa dibadda u saarto qofka haduusa maasha allah dhin uu arkaa aragta hor arka laga yaaba maasha allah soo dhigina ishiisu ay haleesho marka insha allah raxmaan mar walbaad ubadkina dibad u saartay noqoto saasoo kale ah ubadkaas hodha inaad u duubta isku day
xataa qofkii ku tus oo qaraabada xataa u dhow xataa oo yani waxa weeyaan ku dhaha ubadkan arkayaan wejigiisa tus ama jirkiisa tus inaad u diida lagaa doonaya, inaad u diido ayaa lagaa doonaya biidni illahi tabaaraka watacala. ilahna ku xifdi markaad dibad u saaraysan inaad aad ubadkaad u xifdiso, adkaartaad ku aqriso, wax walbaad ku aqriso. qofkii soo galane oo markaa guriga kugu yimaado ee ubadka wax ka sheegaya ama cadaantiisa ama qurxidiisa tilmaamaad aragto, in badan oo kamid e waxaad ku laazimisaa ood u laqintaa tiraahdaa bal qul maasha allah dheh, insha allah maasha allahdaasoo dheh qofku ku dhaho aad ku laazimisa amaad xusuusiso, waxyaaba badan bay dafci kaga noqon kartaa inaysan ubadkaasi oo isha halaynin. xataa aduu dibadii banaanka haddaad ka dhowrto ubadku oo inaad yani waxa weeyaan oo aad u bixiso ood gurigaad ku reebta, xataa ummad guri kugu imaanaysa maasha allah aan dhehini baa jirta, kadibna ishooda way haleeleysaa. marka insha raxmaan markastoo qofka ku yimaado inuu ubadka wax ka sheegay aad dareento ama cadaantiisa ama quruxdiisa ama fariidnimadiisa tilmaamayo, u laazimi inuu maasha allah uu yirahdo. insha allah ilahi subxana wa tacala kuma soo celin doona insha allah. weliba waxaan kusii raacinayaa, weliba ubadka markuu saasoo kale ugu nugul yahay isha bini aadamku, u laazimi mar walba waxaad ugu duugaysid amaad u marinaysid markaad u qubaysay mar walbaba saliida zaytuunka oo adkaaraad ku akrisay. waxyaabaha ilahi subxana watacala uga dafcin kara bay kamid tahay. jazaka llah khayra. walaalkaa zubayr cabdiraxmaan insha raxmaan waa soo dhawaanaysaa, inkastoo barnaamij gabagaba yahay. su-aal baa tirahda insha allah waa weydiin karaysaa, wixii ilahi naga karsiya ayaan kaaga jawaaba insha allah. walaashaa kale su-aal bay weydiinaysa, waxay leedahay 2 bil kadib indhaha laga qabtay, waxaa la dhahay xididaa xiran 2 sano markuu gaaro waa in la qalo, ay taqaartitay dhexeen. inanka adaab ay ka sheekeynaysaa oo macnaha dhulaxadaha ama kasoo baxyada iyo nabraha waaweyn ay kasoo baxayaan, in dhaqaatiirta yirahdeen xidido baa xiran, kadibna 2 sano markuu gaaro ayaa la qalaya. insha allah dhaqaatiirta shuguntaas iyaga ayaa nooga aqoon badan, iyagaa nooga aqoon badan. haddii ay tilmaameen iskaankii waxyaabahay saareen ay ku arkeen in qaliin u baahan yahay, insha raxmaan qaliinkaasi inaad la sugtaa wanaagsan. laakiin ka hor waxyaabaha qaliinkaas hadduu jiro oo il bini aadam ay tahay kaaga badbaadin karo waxaa kamid ah ruulka hadda kuu tilmaamin ku laazimi maqribkii iyo subxi. waa 2 waqti ee shayaadiintu guryaha ay soo weeraraan oo ay soo galaano guryahan xifaadada ilahay ku jiran oo magaca ilahay aan lagu xiran ama ilahay laga xuseynin way iska soo buuxinaan. guriga ilahay magaciisa lagu xirana in badan oo kamid ah waxa weeyaan soo ma galayaan. marka intaa qaliinkaas la gaaro ubadkaas uu kobcin, waxaa aad kula talin lahaa inaad u laazimiso marinta aad u marinaysa zaytuunka qur-aanka lagu aqriyay, iyo inaad mar walba meelaha waxyaabaha kasoo bixin dhulaaxadaha inaad xabad sawdo oo saliida ah oo adkaaraad ku aqrisay, isla xubinta adoon meel kale marin, xubinta wax kasoo baxa nabra ama kasoo baxyada oo wejiga meesha doona aadan baad u marinaysaa. insha allah qaliinkaas inuu ilahay ka badbaadiya ayaan rajeynayaa. haddii cawrey jirtana ilahay meesha uu ku baabi'iyo. jazaka allah khayra. nacam magacaas anaa qaldisaa filaya suhayr cabdiraxmaan baa u qoran, laakiin subayr baan dhahay, cafwan insha allah. waana walaalaha muslimaadka kamid ah. waxay leedahay masalad bay weydiinaysaa, sheekh waxaan ahay bay leedahay gabadh 17 sana jir ah, waxaana muddo 4 sana ka hor la nooleen waalid iyo walaalo midna. sheekh waxaa korka inaan aniga iyo familka hadal aanan qadaaji karin, buuq iyo dagaal badanna, soonka iyo salaada way i dhibtaa. waxaa ahay qof jecel in ay doontaa diinta barato, saa filaya af soomaaliga yani si kale u qoran, diinta barato. marka sheekh maxaa ila gudboon oo aan sameeya? masaa-isha hadda walaasha ay ka dhawaajisay ama ay tilmaamtay arrimo badan bay taabanaysaa. qofka hadduu caqligiisu yahay qof tamyiiza caqliga kala sooci karo wixii xumaani wixii samaan ama wixii xanuunku hay waxaan ku haynin dhammaantoodiiba kala sooci karayo, xaqiiqatan adu nafsadaada waa isdaweyn karaysaa. haddii wixii taaqadii awoodda jirkaaga dhibayana intaas dhibaato kuga hayana oo yani ka awood badan yihiin oo kale inaad adkaarti waxyaaba ka aqrisatana walaalaha mucaalijiinta ayaad u kaalmaysanaysaa. awalan waxaan ku oran lahaa xanuunka jirkaaga soo baxay inuu soo baxa hadaad doonaysa ma calaamaadkaas ogaata. jazaka allah khayra. waxaa awalan ku dadaaleysaa inaad dhegeysato 2 waqti bacda almaqrib iyo bacda salaat subax suurat lbaqara kaamil. haddaad awoodood aqrin karaysa inaad afka ka aqriso, kitaabka musxafka inaad soo qaadato. haddaadan ka aqri karaynina in aad
يعني waxa weeyaan dhageysato oo earphone-ka dhaga inaad la geysato adoo kaligaa qofna ku qasaynin oo meel degan aad joogto inaad dhageysato suuratul baqara oo qofka laazimeyn oo aqriyo maqribkii iyo subaxii oo kaamil ah ama uu dhageysto waa waxyaabaha jirka waxa ku jira soo saari karayo ama gubi karayo marka xaaladaas ku dadaal insha raxmaan haddaad intaa ka horna aad heli kartana meel mucaalij ama qof mucaalij oo garanaya shu'uuntani arrimahani inuu toos ku quraan saaro dhegta inuu buugii shay ka saaro uu kuga aqriyo inta badan xanuunka jirkaaga ku jira wuu soo baxaya ama qaabkaasaan kuu tilmaamay samey rabbi kuma dayaci doona biidni illahi tabaaraka watacaala jazaakum allahu khayran walaalaha duceynaya dhammaan way soo dhawaan karayaan ilahi subxana watacaala ha idin wada barakeeya dhammaantiina walaasha masalad bay soo qoraysaa yuusuf waxay leedahay sheekh arrinteedii waad la socotaa maxaan sameeyaa sheekh xaqiiqatan walaalo dadka igu fara badan awgeeda haddaada masalad inta igu soo qorin meelo kale aad igu soo qortay meelahaas ad igala soo qortay insha allah waad igala soo xiriiri karaysaa si aan markaas si aan u jawaabo biidni illahi tabaaraka watacaala haddii laakiin mid inta kusoo qorays tahayna waan kaaga jawaabaya laakiin xaqiiqatan inaan dib isu raaca mooyaane waxa hadda gooni aan xusuusan karaya ma jiro in arrimo hore igu sheegtay xanuunadan shu-uuntan ku saabsan insha allah haddaa inta iga weydii karaysana khayr inta waqtiga yaraan ku jira haddii waxa weeyaan meelihii aad markaa iga weydiin karta igula soo xusuusin kartana insha allah lakaana khayr waad i weydiin karaysaa jazaka illahu khayra insha allah muddo 10 daqiiqo gudahooda insha allah waan soo gabagabeynaya walaalaha su-aalaha ku saabsan arrimaha maadaama su-aalahay arrimuhu ay maanta caawa ku saabsanayeen ubadka xanuunada ku dhacay isha ah qaabku qofka inta isugu dhicin ugu hortegi karayo calaamadaha lagu gartay inay ubadka isha hayso ama markii ku dhacda kadib waxyaabo qofka kaga daweyn karayo ayay intaasi waxay u tahay masaa-ilay su-aal walaalaha inay ku baraarugsanaadaan ay mudantahay insha raxmaan بعد 10 دقائق إن شاء الله برنامج كسوغا وقبيدونا جزاكم الله خيرا وحي سؤاله ودمني أرماها كصابصا ويدين كريا جزاكم الله خيرا عفوا إن شاء الله دمان والله الله يسود وين كريا walaasha masalada gadaal bay kasoo raacaysa mar labaad waxay leedahay sheekh su-aal kale wiilka ay ka sheekeynaysa marka hore masaa-isha looga jawaabay masalada looga jawaabayay 3 sano ayuu jiraa hadalka ku culus sidiisa kale wax walba uu fahmaa laakiin kuma dhawaaqi karo khayr la ku insha allah ubadka ayaga kala fariidsan qaarna 2 sano ay ku hadaaqaan oo ku bilaabaan xataa hadalka inay wax yara kala fahmaan 3 sanana waxa weeyaan waa inta badan ubadka waxay ku sii yara fahmaan ilaahay subxaana watacaala fahamka iyo hadalka sida ugu furabaynu ku xirantahay insha allah waxaad arkaysaa ubad yani 9 sano jir weli aanan harkayn ama hadalka weli ku dhegdhegan yahay insha allah ubadka weliba 5 sano markuu gaaro kadib unba inta badan hadalka inay shayaadiin ka haystaan ama ay dhibayaan iyo in kale la kala garanaya inta koreysa laakiin hadaaqi wax walba di fahmadiisa furanta insha allah hadalka inta badan ee ubadka hadlayaan ama hadalka ay saxayaan inta badan way soo dib dhacdaa ku sabar insha allah ilaahina u bari ilaahay subxaana watacaala wuu ku hagaajinaa jazaka allah khayra نعم ولاasha waxaan filayaa inay mahad celinaysa ilahi subxana wa tacala ilahi xaggiisa mahadiya kaa gaarta adiguna insha allah
anigan waxaan rabaa su-aale inay ka wadaan fila insha allah. wixii masaa-il ku saabsan arrimahan waa weydiin karaysaa. jazaka allah khayran wa axsana allahu ilayka biidni illah. بإذن الله تبارك وتعالى. insha raxmaan walaasha way sii cadays masalada waxay leedahay su-aashaa rabin aan ku weydiiyey bulshada dhexdeeda dhib ayay igu tahay insha allah. haddii bulshada dhexdeeda dhib kugu tahay insha allah beejkayga gooni waad igu soo qori karaysaa. wixii ilaahay iga waafajiyana insha araxmaan waan yani waxa weeyaan kaaga soo jawaabaya inta ilaahay subxana watacaala iga fahansiiyo. jazaka allah khayr insha allah waa soo dhawaan karaysaa. wixii su-aalana beejkayga kusoo qori karaysaa. cafwan insha allahu tacaala walaal biidni illahi tabaaraka watacaala wayna suurtagal tahay waxyaabo badan oo qofka nafsiyan uu dareemayo oo si goonin loogu naseexeeyo laga yaabaa. in badanoo kamid waxaa laga yaabaa dadka friendsku leeyahay oo kale ina masaa-ishaas oo kale aysan ogaanin. way jirtaa waxyaabo badan oo qofka uu qarsan karayo nafsadiisa in looga jawaaban u baahan karaysa biidni illahi tabaaraka watacaala. walaal kasta oo muslima saas oo kalena doonaya insha allah beejkayga wuu igu soo qori karaya kadibna waa ugu soo jawaabaya wixii ilaahay subxana watacaala ay waafajiyay biidni illahi tabaaraka watacaala. waqtigii 10 daqiiqo insha allah 3 daqiiqo waa inooga harsan inaan walaalaha insha allah wixii markaasi weydiinaya aan uga jawaabna biidni illahi tabaaraka watacaala. إن شاء الله تعالى موضوعا كسر قبينيا بإذن الله تبارك وتعالى وحير ولا لوحان داريا بإذن الله تبارك وتعالى قرآن يصود عود كان يدوب جزاكم الله خيرا. بيجك إن شاء الله كان هذا داوني سيد بات كسر حيري ولا شو حيل هذا بيجك أنت كهلا بيجك كان هذا داوني إن شاء الله
unbaa insha allah tacaala raacaysaa profileka kadibna meeshaad igu soo qoraysa wixii su-aala insha allah. waxaan rajeynaya walaalaha intaad dhegeysanaysa ama ku jirto o kale insha raxmaan qadar ilaa 2 daqiiqa camal inaad qur-aankan dhegeysataan in ilaahay subxaana watacaala intaasi qof kastoo jirkiisa waxa ku jira inuu dareemo ay suuroobi karto. jazakum allahu khayran. isagaan kusoo qatimaya muddo 5 daqiiqa ama ka yar baad dhegeysanayna insha allah, kadibna insha allah mawduuca waa soo xirinaa. walaash waxay leedahay wali walaash waxay leedahay ma arkasaan filayo walaala aragti anigu waan arkaa hadda waa ka kan pagekaaga ahaan magacaas ku qoran oo kale magaca ii qoran aad ku arkaysid wax kusoo qoraysid magacaas wey insha allah ta ilaahay dubo. حوالي معنا شيء والله إن شاء الرحمن غير عفوا. الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب سبحان الله
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون. عفوا بإذن الله تبارك وتعالى ولا قد كيغير علصان في إن شاء الرحمن وين عاونا عوار دقيستان وجعلها إن شاء الرحمن إلهي سبحانه وتعالى أنتي مركزي دقيستان وسؤالها ويديستي إلهي سبحانه وتعالى ورجينا ينكو عافيو رأيقا إلهي